حو مش حرام لي هذا حو حلقة والله وعيا صابرين يسوعني وحرام يرير كأقول بدن أربع مش مركي أرجع في الدوينة إيش كوا وينا وحرام كذب بدن الجين لما أبور مرة حوالها مركي ليرة بدنا شعب حرام كورني ياري حرام أرجع بدن حرام نبكي كبث والله سرعة ناس صابرين يسوعني شعيبك دوتك لسعلي حرام ماشي يكون عصبين مركا أريق بعض شعيب كدوتك سعلي حرام ماشي يكون عصبين مركا حال ديدة يعني كلا الله أنا كلا عرّان نبكي أيلين دا قال هيدا حرام أنت بدنا أريق على قدر مركا وإنير ويريره حرام يركب ميقاها شعيبو ما يركب ملقاها سيالك بلتير بل ينقول من حاجة وسك الجلانة أفرح هل كنت شفتها صابري وحرام يركب ملقاها كاحق بتاني ترى ما حالك أصلا لا ما نكسر كه لحظة سؤال إن صابريناي لا إني شافي ده هذه بس عارفة وش ده حريها كان بترتلنا هنا ساكن عبار ما إلى لنا أرجع حالك كسر دوادن كعلنا هنا هذا ما حالك أنا راح أشوف تصدق تدوا لا أنا halkaasii joogtaa sagaal way dhan yihiin ku yararka ma tabana tirada ka lumsaneeda jinowga cunaydeen aawaya yaalka markii halkan xara u sarraacna day wax bay cunayn الله صديق الداقي شعيب صديق سيده حري الداقي محل رجيت كعنيسة يا شنو مستشنو شنو أنا وقعنا سدود دمية الله نيجا دام فرنالها وند دميلها مرة يبدن بيسي هاي الله ويلك واقع قيلة يا قيلات متقن شعيب قاد متقن قاد إلهيكم أبرا جيت كعنيس محل إذا مرك شنو سدود دمية دنام سكده هبر ودي سادنا كبدنكم مصيا أنا قرح قليلا جيت كاتشنو اللي ده أصحابي على أنت سولي على أنت نام بولي على أنت نام ورجيت كاتشر ورجيت في فوسا فديسن سودك كل شيء بني عيال نمدي محاجة اللي سوف ولتره وحري عيال لأن نسوي شيء كسر الوضع إنه الوضع كهرتي وحري كل حاجة هذه لا إله إلا الله ورناك حي هيا صابرين ديري هرت ديري ما قدام سقاوي ديري الله قاوي مربتت هذه شعب يا دير إريقة أنا قد هرت وحري وأنا إلى الماء الفرسانة محل هذين أمين داوني ورقردة حقي وردان حافظ الباب كان حجابك سيدي صارت صابرين ودي بالله شعب محل أصحابك كثير سنة
hooyada heedeen oo shaqaha u qabtay waa caruurta dadka waaweyn maasha allah nabadon dheerey nayli idaan ka soo celino waan salaamayna asxaabta qaaliga aba naysha yarta quruxda badan nayshaas magaceed maxaa lahaa inaha arigii iyo xarii markaan ka imid kadib waxaan sameynayaa afur baan sameynayaa afurkana waa markii ugu horeysay meeshan aan ku sameeyo meelo kale ku soo arki jirteen meesha reerku deganaa xaabo ama qoryaan soo doona laakiin meel dheer kama aan doonin geed yar oo agteeda guriga agtiisa ku yaalayaan iska soo jabsaday xaabo yar yar asxaabta marka waxaan leeyahay horta aad iyo aad baan uga mahad celinaya asxaabta mar walba muuqaaladeeda daawada aadka maasha allah u xiiseeya walow aan jeclaan lahayn ama aan ku fakerinay dee barnaamijyadiisa ay iga barateenba inaan meelo cusub ama gobollo aan tago laakiin roobkii ayaan weli isii soo raaceen marka in badanna hore waan kugu sheegay meeshaan dee muuqaalada waan iskaga sii yaranasanaynin oo waxaan ku suganaynaa intaa gobolladii aan ugu talagalnay inaan mawduucyo badan kasoo diyaariyo intii markaa gobollada ay si fiican uga wada roobsanayaan marka intii ka horeysana dee halkaa minankeygii ama gurigeygii waan iska sii fadhinayaa adinkana waan kaga mahad celinayaa markasta muuqaalada qaar markasta meeshan aan kasoo sameeyay in badan aan waayaan aan joogay malaha safar aan gala waxa ugu dambeysay gobolka Shabeellada Dhexe ee Jowhar marka insha Allah gobolada way noo bilaaban doonaan mar dhowna goboladii marka aan tagi jirnay mawduucyada kala gedisaneen wareysiyada iyo wax walba aan kasoo diyaari jirnay sida dhaqanka loogu kala duwan yahay adinkuna waxaan leeyahay inta ka horeysa oo ku mahadsantiin daawashadiina iyo sida marka ay ugu sii dul qaadanaysaan afurkii waan soo diyaariyay canjeelo iyo maraq iyo waxbaan soo dabkii soo saaray laba dab baan kala shitay intaa kadib halkaa xitaa xaqin lagama gaaro waa la iska daalanayahay meesha waa markii ugu horeysay aan degnay ayaan sitaayadeena ama qadiifadii ama xasiigsa u garanaysaa iska dhiganayna afurkeeni ku diyaarsanayna asxaab badan waxay soo weydiiyeen makiinada muuqaal hore shiiday wax ku shiiday weydiinayay makiinada waxay ahayd solar bay ahayd marka intii u baahan ee reerahooda raba inay u iibiyaan waxaa jirta makiinad markaa solarku ay ku shaqeynayso oo adduunkii casri baa la gaaray marka asxaabta qaaliga qeyr badan baan idin rajinaya maanta muuqaalada waan isku dardaray waan ugu talagalay inaan dhowr mawduuc isku dardaray insha Allah saan sheegna muuqaaladeena mar dhow way noo bilaaban doonaan hadii Allah awood leedmo xaga ayaan safar yani aan ka wada muuqaaladii safarada ama gobolada aan tagi jiray marka anaga meesha jooga soo qurux badan baa degnay walaalaha qaaliga marka qeyr badan tan inta ku kulmi doona mawduuc sidaas iyo nabadiino